waxaa isna xafiiskan soo booqday mid ka mid a ganacsatada ka soo jeeda Puntland oo la yiraahdo Mahdi Shakiib isla markaana guddoonsiiyay deeq lacageed xafiiskan ugu talagalay. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Mahdi Shakiib. waxaan deganahay magaalada Atlanta gobolka Georgia. waxaan joogaa maanta waa gobolka Minnesota magaalada Minneapolis. xafiiska cusub ee Puntland ay furatay xafiiskaas oo aan maanta doonayo inaan warbixin yar aan idinka siiyo oo ah inuu xafiiska cusub yahay inuu maartay doonayo inuu adeego bulshada Soomaaliyeed oo dhan khaasatan bulshada Puntland. haddaba marka aan doonayno in barnaamij sidaas u weyn aan garabkiisa galno waa inaanu garabka isqabsanaa. maanta waxa ay keenay meeshan oo aan meel u soo maro waayay waxa weeye farxad xafiiskan cusub la furay inaan ka qayb qaato horumarkiisa. kulligeen horumarkii waa ka wada qaadanaynaa waxa weeye qaybna waa financially oo lacag ahaan iyo deeq ahaan qaybna waxa weeye morally. haddaba waxa aan doonayo waxa weeye in marka hore ay noo soo horumarto xafiiskan kharashaadkiisii sidii lagu bixin lahaa inaanu falankeeda qabno. haddaba maanta anaa doonaya inaan noqdo ninka ugu horeeya oo deeq xafiiskan soo gaarsiiya ka timid ilaa iyo Atlanta ilaa iyo Georgia in aan marka hore ku bilaabo oo aan ku noqdo ninka ugu horeeya oo xafiiskan caawimaadiisa bilaaba iyo deeqdiisa bixiya. marka ogaada waxa weeye ceelno uma qama nina uma maqna inagu inaan isku tashano oo aan xafiiskan sidaynu muraadka loogu talagalay aan u fulino weeye. hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa fariinteeduna ay tahay waa in garab iyo gaashaan xafiiskan la siiyaa.